dagaalo qadhaan ayaa ka socda galbeedka Tigray. Dagaalada oo maalmihii u dambeeyay ka socday deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegay in haatan sii cuslaadeen, weliba maanta ay dagaaladii ugu xoogganaa ugu qadhaadhaa ay dhaceen. Ciidamada Tigray ayaa sheegay inay ku sii siqayaan aagaga hore ee dhinaca magaalada Humera, waxaana haatan sheegteen markaa in Humera la qabsan doono wiigan soo socda ama markaasi wiiga ku xiga ay TPLF gacanta ku dhigi doonto, waa sida ay markaasi iyagu haatan sheeganayaan. dhinaca kale Humera labada dhinacba TPLF way ka dagaalamaysaa. TPLF Suudaan ka timid iyo oo markaa la sheegay in ciidamadii hore Ethiopia ee markaa nabad ilaalinta u joogay qaramada midoobay Suudaan intii Tigray ahayd ilaa 500 oo askari oo ka tirsan baa la sheegay inay halkaasi markaa ay ka soo dagaal galeen oo markaa ay Suudaan soo hubaysay. sidoo kale dhalinyaro qaxday oo markaa gashay Suudaan ayaa muddo sanadaba ay ku eedeynaysaa Ethiopia inay Suudaan tababarto. raggaasoo iskaashanayo la soo hubeeyay ayaa haatan la sheegaya weliba hub casriya wata baa layidhi oo dhinaca Suudaan loo soo mariyay oo weliba la sheegay haatan in markaa wadamada reer galbeedka Mareykanka oo kale ay ku eedeynaysa Ethiopia in hub casriya reer galbeedku soo siiyeen ciidankaasi. nimankaasi haatan wacdar ayay dhigayaan baa layidhi, waxaana la sheegay haatan in magaalada Humera ay qarka u saaran tahay inay la wareegaan, waxaana haatan sida oo kale la sheegayaa in TPLF ta sheeganaysaa inay Humera dhinaca kale Tigraygana ay weerar kaga soo qaadeen. inkastoo ay TPLF tu awoodahaasi oo dhan haatan ay sheeganayso, haddana waxay sheegtay ciidanka Eritrea in haatan ay bir ku yihiin oo ay laf dhuun gashay ku noqdeen. sidaa darteed waxay sheegeen inay ciidanka Ethiopia ku Eritrea wada socdaa ay magaalada Shira iyo Shiraaraba ay duqeyn xoogan ku hayaan, taasi oo cir iyo dhulba leh. dhinaca kale ciidamada militariga oo kaashanaya ciidamo isku dhaf ah oo huwana ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay u ruqaansadeen deegaanka Didebit. dagaalo culus ayaana eegaasi isaguna ka socda aaga Didebit oo ka tirsan markaasi galbeedka Tigray ayay ka tirsan yahay oo ama walqaayad deegaanadaasi. haddaba Didebit waxa gacanta ku haysay TPLF ta ama Tigrayga ilaa sanadkii hore bishii December ilaa November ee sanadkii hore ayay gacanta ku hayeen. haddaba deegaanka Didebit oo markaa ay saldhigno u ahaa ciidanka Tigrayga ayaa haatan waxa ay sheeganayaan markaa dawladda haddaba inay weerar ku qaaday oo ay u ruqaansadeen deegaankaasi oo haatan ay markaa qarka u saaran tahay inay qabsadaan oo sida ay dawladdu sheeganaysa. haddaba dhinaca kale dagaalo xoogan ayaa iyaguna haatan waxay ka socdaan furimaha dhinaca waqooyiga Gondar, gaar ahaan magaalada Adi Arkay ayaa haatan la sheegayaa in TPLF laga qabsaday. Adi Arkay waxa gacanta ku haysay TPLF oo sidoo kale ilaa sanadkii hore ayaguna misla magaalada gacanta ku hayeen, waxaanay markaasi u ahayd aag ay ka difaacayaan markaa haddii ay ciidamada Ethiopia iyo markaa axmaarada kaga yimaadaan dhinaca Gondar wixii u socda markaasi in ay difaacaan walqaayad oo kale ay halka ka joojin jireen. haddaba haatan waxa Adi Arkay la sheegay dagaal xoogan oo socday maalmihii ugu dambeeyay oo dhan. haatan waxay sheeganayaan markaasi xukuumaddu in iyaga ay la wareegeen magaaladaasi Adi Arkay. dagaalku haatan jilbaha ayaa la isku aastay sida loo kala cadeeyo cidda guuleysatayna ilaa ay haatan saxaafaddu cadeyn buuxda iyada laftirkeedu ma cadeyn karto oo goobihii ma joogaan. saxaafadda heer caalami marka la sheego xitaa iyo saxaafad bareefadaba cid markaa goobtii dagaalka joogta ma jirto. laakiinse waxaa laga soo xiganayaa uun muuqaalada iyo moogtahay wixii de warbixin ah ama sawiraana macquul ah markay soo bandhigaan yinba laga soo xiganayaa. laakiin cid halkaa ka soo waramaysa oo toos u joogtaa ma jirto. sheegashada iyo muuqaaladooda iyo wixii xaqiiqi ee u dhowday xaqiiqda u dhow ee la rumaysan karo ee qolo walba ay soo bandhigto ayuunba haatan warbaahinta soo xiganaysa. si kasta ha ahaatee kii roombaar heerka u haraya baa layidhi dagaalkana waa kii kaba dambaysa ahaa. natiijada ayaynu eegi doonaa iyo haatan wixii kale ee soo kordha. barnaamijkeena intaasuu ku dhan yahay. tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.